shirkan ay soo qaban qaabisay wakaaladda horumarinta wadooyinka Jamhuuriyadda Somaliland oo lagu soo bandhigay qalab kala duwan oo loogu talagalay wakaaladda horumarinta wadooyinka ayaa waxa uu ka dhacay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland wasiirka dowladda wasaaradda maaliyadda maarayaha wakaaladda wadooyinka Somaliland agaasimaha hay'adaha xidhiidhka ee wakaaladaasi iyo mas'uuliyiin kale ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay maarayaha hay'adda wadooyinka Somaliland waxa aanu ka hadlay ahmiyadda iyo faa'iidada uu kulankani leeyahay mudane wasiir waxaanu halkan u joognaa maanta inaynu daahfuro dokumentiga manualka ah ee ku saabsan road standards iyo specifications inagu meynaan lahayn hadda ayaan aasaasayna gacanna waxa naga siiyay runtii hawshan aad arkaysaan ILO qalabkii surveyga lagu sameeyay horteena yaala hadda halka yaala oo aynu u dirayno wadadii Ceerigaabo runtii oo hal kaliyan ka haysanay markii hore maantana labo agaasimaha mashaariicda xidhiidhka caalamiga ee hay'adda wadooyinka Somaliland mudane Yaasiin Cali Aadan waxa aanu sheegay in ay qalabkan kala duwan ee maanta lagu soo bandhigay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa uu faa'iido weyn u leeyahay wadooyinka Somaliland dokumentigan maanta in hor yaala oo ah road standard manualski oo ah farsamada technical sidii loo sameyn lahaa wadooyinka oo dhameystiran haday tahay furniture-ka hadii ay tahay calaamadaha wadooyinku yeelanayaan drainage-ka meelaha biyuhu mari lahaayeen waxyaabo badan oo u baahan tahay wadada in lagu sameeyo wasiirka dowladda wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa aad ugu mahadnaqay mas'uuliyiinta hay'adda wadooyinka Somaliland iyo sida fiican ee ay kulankani u soo qaban qaabisay agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud iyo guriyinta Somaliland waxa aanu ka sheekeeyay faa'iidada iyo ahmiyadda wadooyinka standardski koowaad runtii oo maanta lagu soo bandhigay oo ay soo qaban qaabisay hay'adda ILO iyo hay'adda wadooyinka RDA runtii markay ka hadlayno wadooyinka la soo design-kan manualkan la soo dhigay wuxuu noqon doonaa specification-kii wadadu noocayna qaban noqon doonto wadadu macquul ma ugu tahay wada noocaas in baliiska laga sameeyo gabagabadii waxa shirkani furay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan aad iyo aad baan runtii ki aqoon kaga qayb qaatay iyo hay'adda ILO baan si gaar ah ugu mahadcelinayo and thank you very much contribution-kiina aad baan u qiimeynayna cid kasta waxay dalka ka fuliso sidii u kala qiimo badan yihiin ILO waxaan ogaa hore ay uga fulisay wadooyinka wadada Ceerigaabo iyo isku xidha meesha la yiraahdo Ceelaf Weyn oo ay ka sameeyeen project aan hore loo sameeyay oo ahaa project ay ku sameeyeen runtii tasbo ahaa laakiin ay ku sameeyeen inay wadada u sahlaan oo footwork ahaa inay ku sahlaan oo dadka yani deegaanka adeegsadaan kadibna ay meelihii qadqatiga ahaa iyo dhibaatadii يعني يقول لامي مركا أود ما يسمين كرين لكن يعني كوس عادي ير أي شقة في عنكو قبتي